bismillaahi raxmaani raxiim war wanaagsan qodobada wararka risaaladeen heesa dhageystayaal waxa ugu waaweyn maxkamadda gobolka banaadir oo xukun dil ah ku riday dad lagu eedeeyay dilkii marxuum axmed dowlo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo la kulmay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya midowga Yurub oo gaadiid loogu talagalay gurmadka ku wareejiyay maamulka gobolka banaadir madaxweynaha Galmudug oo dib ugu laabtay gaalkacyo faahfaahin ka bixiyay kulamadii Nairobi kula yeeshay xubnaha beesha caalamka wada hadalada dalka Itoobiya uga bilowday Soomaalidii Oromada shirweynaha badqabka fikirka xaqdirnimada oo maanta Muqdisho lagu soo gabagabeynayo boqorka Jabaan oo xilka isaga tagay sabab la xiriira da'diisa iyo wada hadalkii golaha militariga Suudaan iyo mucaaradka dalkaas oo fashil ku soo dhamaaday markale dhageystayaal duhur wanaagsan waa duhurnimo talaada taariikhdu waxay ku beegan tahay 3 bisha afraad sanadka 2019 kusoo dhawaada warkaris aynu ku bilownay maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukun dil ah ku riday dad lagu eedeeyay dilkii marxuum Axmed Dowlo oo sanadkii hore ka dhacay Muqdisho Faysal Hanad ayaa faahfaahinaya maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun dil ah ku riday 3 ruux oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen kiiskii dilka iyo gubistii loo geystay marxuumkii la oran jiray Axmed Dowlo oo 20kii bishii 9aad 2018 lagu dilay xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshid dadka xukunka dilka ah lagu riday ayaa kala ah Xuseen Iidow Maxamed Asli Axmed Cabdulle iyo Aweys Iidow Maxamed sida maxkamaddu ay ku dhawaaqday maxkamadda gobolka banaadir ayaa fasaxday 4 ruux oo kiiskaasi u xirnaa kadib markii la sheegay wax cadeymo ah in maxkamaddu ay ku weysay tirada guud ee kiiskan u xirnaa waxa ay ahaayeen 7 ruux 3 kamid ah ayay maxkamaddu dil ku xukuntay halka 4 kale la fasaxay kadib cadeymo markii lagu waayay maxkamadda gobolka banaadir ayaa muddooyinkii dambe waday dhageysiga kiiskan la xiriira dilkii iyo gubistii loo geystay marxuum Axmed Dowlo oo sanadkii la soo dhaafay lagu dilay xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshid dilkii loo geystay marxuum Axmed Dowlo ayaa yimid kadib markii wiil uu adeer u yahay ay isjeclaadeen gabar deris ay ahaayeen taasoo markii dambe keentay in gabadha hooyadeed ay ka carooto arintaasi weerarna ay ku qaado goobtii shaqada marxuum Axmed Dowlo oo ugu dambeyn lagu dilay sidoo kalena lagu gubay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna hogaamiyaha xisbiga himilo qaran ayaa maanta la kulmay safiirka Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto kulanka ayaa ka dhacay xarunta safaaradda Mareykanka ee ku leedahay xerada Xalane waxaana Sheekh Shariif ku wehelinayay kulanka xubno ka tirsan xisbiga himilo qaran ee ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ila ku dhowdhow kulanka ayaa sheegaya in Sheekh Shariif iyo safiirka Mareykanka ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda Soomaaliya amniga doorashooyinka iyo nidaamka axsaabta Sheekh Shariif ayaa kulamo gaargaar ah wuxuu la yeelanayay safiirada beesha caalamka ee jooga magaalada Muqdisho tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho Khamiistii la soo dhaafay waxaana dhaqdhaqaaqyada Sheekh Shariif uu wado ay noqdeen kuwo aad loo hadalhayo markana dhageystayaal midowga Yurub ayaa gaadiid loogu talagalay gurmadka waxa ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Banaadir Cali Xasan Cali ayaa faahfaahinaya danjiraha midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya ayaa maanta waxa uu maamulka gobolka Banaadir ku wareejiyay gawaari isugu jirtay dabdamis iyo ambalaasyo kadib munaasabad ka dhacday xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Injineer Riisow oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in gaadiidkan ay ka howlgeli doonaan xarumo dabdamis oo maamulka gobolka Banaadir ka hirgeliyay degmooyinka Hodan iyo Wadajir waxa uu sheegay gudoomiye Riisow inay soo gabagabeeyeen mashruuc lagu dhisayo xarumaha dabdamiska oo loogu talagalay inay wadeen muddo dheer kuwaasi oo laga waday degmooyinka Hodan iyo Wadajir ayna u diyaariyeen dhaqaatiirtii ka howlgeli lahayd xarumahaasi iyo shaqaalihii kale howl aan muddo soo wadnay laga shaqaynayay inaan maanta soo gabagabeynayno oo aan marayno marxaladii ugu dambeysay maamulka gobolka Banaadir wuxuu u istaagay waxay ahayd shacabkan baahiyihiisa sidii wax looga qaban lahaa shacabka loogu dhawaan lahaa isla markaana bulshada ay u heli lahaayeen adeegyo muhiim u ah
adeegyadaas waxaan u aragnay adeegan oo loo yaqaano gurmadka degdega ah in magaalada muqdisho ay baahi gaara u qabto, baahi weyn u qabto. taasna ay keentay in maanta aan soo gabagabaynayno mashruucan oo dhismo 2 degmo aan xarumo gurmad degdega laga diyaariyey, la dhisay, loo dhammaystiray. maantana aad arki doontaan qalabkii loogu adeegi lahaa bulshada, ha noqoto gawaaridii gurmadka degdega ahaa, ha noqoto kuwii debdemiska, ambulansyadii iyo debdemiska naftirkoodii oo cillado badan aan ka barannay in oo booyadihii biyaha ka dabawadi lahaa si khasaaraha u yaraato. labadaas degmo oo bilow noo ah oo maanta qalabkooda la soo dhammaystiray, isla markaana shaqaale 28 gaaraya oo isugu jira takhaatiir, nurses iyo dad khubaro ku ah arrimaha debdemiska loo diyaariyey, loo tababaray. kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso oo ka warbixinayay gawaari debdemis iyo ambalaas isugu jiro oo midowga Yurub maanta uu ku wareejiyay gobolka Banaadir. gaadiidkaas ayuuna sheegay gudoomiyaha inay ka howlgali doonaan degmooyinka Wadajir iyo Hodan. warkii waryaheena Cali Xasan ayuu u dambeeyay. markana dhageystayaal, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa dib ugu laabtay magaalada Gaalkacyo. faahfaahinna waxa uu ka bixiyay kulamadii Nairobi uu kula yeeshay xubnaha beesha caalamka. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa ka waramaya. madaxweynaha dowlad goboleedka Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Gaalkacyo ee caasimadda gobolka Mudug. madaxweynaha ayaa ka warbixiyay safarkii uu ugu maqnaa magaalada Nairobi, isagoo sheegay inuu halkaasi kula kulmay madax ka tirsan beesha caalamka iyo sidoo kale xubnaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya. madaxweyne Xaaf waxa uu sheegay in sidoo kale isla garteen madaxda beesha caalamka ee Galmudug in la siiyo taageerada buuxda si looga hortago tabardarada maamulka iyo sidoo kale in sare loo qaado kaabayaasha dhaqaalaha ee dowlad goboleedka Galmudug. madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay in loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay u istaagaan sidii loo badbaadin lahaa dalka. uu sheegay xilligan ay ka jirto dhibaatooyin aad u fara badan, isagoo sheegay in bulshada laga doonayo inuu istaagaan ka qaybgalka shirkii uu iclaamiyey madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ee lagu wado 2 bishan inuu ka furmo magaalada Garowe. waan ku maqnaa muddo 14 beri ah waan kula kulannay beesha caalamka iyo qaybo ka mid ah iskaashii dowlad goboleedyada. halkaasoo maaragtay aanu wax badan kala soo kulannay, wax badan oo Galmudug iyo Soomaaliya oo dhan khuseeyana looga hadlay. aan rajaynayo in arrintaasi ay noqoto mid noo miro dhashay insha Allah tacaala. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u soo jeedinaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed dalka dhibaataa ka jirta, hadday tahay mid goboleed iyo mid caama, mid gobolkii Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan. ilaahay nabad iyo wanaag ha ugu bedelo dhibaatada badan oo haysa, oo ay abaartu ka mid tahay, oo colaaddu ka mid tahay, oo maamul xumadu ka mid tahay. ilaahay ka daweeyo. waxaan rabnaa in aan u howlgallo saacaddaa laga bilaabo iyo waqtigan la joogo sidii aan dalka ummadda Soomaaliyeed u badbaadin lahayn. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Geelle Ducaale Xaaf ayaa khilaaf xoogan waxa uu kala dhaxeeyaa dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay xubnaha sida weyn dabada kaga riixaya shirka lagu wado inuu ka furmo magaalada Garowe, kaasoo ay ka qayb galayaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubno ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya sida uu hore u iclaamiyey madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. waxaa sidoo kale madaxweynaha xusid mudan in maalmihii la soo dhaafay uu ku sugnaa magaalada Gaalkacyo, halkaas uu ka waday kulamo kala duwan oo looga soo horjeeday in Galmudug ay doorasho ka dhacdo sanadka 2019.
wadahadalo ayaa lasoo sheegayaa inay ka bilowdeen dalka Itoobiya waxayna u dhaxeeyaan Soomaalida iyo Oromada. Axmed Tifo Xasan ayaa faahfaahinaya. dalka Itoobiya waxaa ka bilowday wadahadalo u dhaxeeya maamulada Oromada iyo Soomaalida dalkaasi Itoobiya. dhinaca Soomaalida waxaa hogaaminaya madaxweynaha maamulka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar waxaana la socda wafdi ballaaran oo qayb ka ah wadahadalada. sidoo kale dhinaca ismaamulka Oromada Itoobiya ayaa waxa ay ka qayb galayaan wadahadaladan lagu doonayo in lagu dhameeyo colaadda labada qowmiyadood oo muddo dheer soo jiitamaysay. shirka madaxda ismaamulada waxa uu hordhac u yahay shirweyne la isugu keenayo bulshada labada dhinac oo dhowrkii sano la soo dhaafay ku dagaalamayay sohdinta labada maamul iyagoona dhowr qofood ay ku nafwaayeen intii dagaaladu ay socdeen. inta colaadaasi ay socotay waxaa ku geeriyooday 100 qof oo labada dhinac ah waxaana sidoo kale ku barakacay dad qiyaas ahaan lagu sheegay tiradooda 1 milyan oo qof. shirka ka furmaya magaalada Adama ee ismaamulka Oromida wadankaasi Itoobiya waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee labada dhinac ay yeeshaan tan iyo sanadkii 2016 iyadoona ismaamulada Soomaalida iyo Oromida madaxweynayaashoodu ay dadaal dheer ay ugu jiraan xalinta labada qowmiyadood colaadda muddada bilooyinka ah dhex taalay. ugu dambeyn dhageystayaal waxay gabi ahaanba u muuqataa inaan la isku afgaran kulankii saddexaad ay yeesheen golaha militariga Suudaan iyo mucaaradka iyadoona dad badan natiijada ay u dhagtaagayeen. waxaa soo baxayay goor hore warar sheegaya in ay isfahmeen labada dhinac ah yeeshee xubnaha matalaya dibadbaxyaasha Suudaan ayaa soo jeediyay in shacabka la siiyo 8 jago halka militarigana ay qaataan 7 jago. arintaas ayaa la soo sheegayaa in ay noqotay qodobada la isku mari waayay. boqolaal dibadbaxyaal reer Suudaan ah ayaa dalbanayay in militarigu uu gabi ahaanba xilka baneeyo kuna wareejiyo shacabka. militariga Suudaan waxay sheegeen inay ka hortagayaan in rabshado ay dalkaasi ka dhacaan kadib dhacitaankii Al-Bashir waxayna ballan qaadeen in kaliya muddo 2 sano ay ku sii joogi doonaan si ku meel gaar ah. dhanka kale ururka xirfadlayaasha Suudaan oo horkacayay kacdoonkii xukunka looga tuuro Cumar Xasan Al-Bashir ayaa ka hor yimid tallaabada ay kaga hortagayaan dibadbaxa waxaana suurtagal ah in mar kale ay dalka Suudaan dibadbaxyadu ka bilowdaan. guud ahaan dhageystayaal warkii duhurnimo ayaa inta